marka ugu horeysana hambaryo ayaan leeyahay naadiga aqoon-yahanka ka aflaxay dugsiga sare ee Axmed Guray Makaasa oo runtii aanay ahayn xafladii ugu horeysay oo aan ka qayb galo balse 15 sano ay jireen xaflado kala duwan xataa ilaa iyo dibadda aan ka qayb gali jiray agaasika wanaagsan quruxda iyo muxuu ahaa wujuudan quruxda waxay ka tarjumaysaa juhuuda fara badan ay ina geliyeen barbaariyaasheen waxaan la yaabanahay ustaad Mooge Maxamed Mooge oo aan 2004 macallin dugsi sare dugsi hoose dhexe sare ka wada ahaan jirnay macallin inuu weli timihiisa sidii uu madow yahay ustaad Cabdi Majiid oo runtii aan xasuusto mar aan simaar ku galnay oo 3 habeen aan seexanaa dawaagii baa ka dhageysan jiray xilliyada dambe erayga hadda halkaa laga sheego waxaan ku hayo orodoo iska dhaadhac oo timihiisii caddaadeen waxaan maleynayaa ustaad Mooge weli inaan la dhibin laakiin waxaa la yidhaahdaa ninka rag ma noqdo dulqaadna ma yeesho ilaa uu ka soo maro 2 majaal macallinnimada iyo ciidannimo waa ku faraxsannahay maanta in ay asaatidadeena waxyaabaha juhuudda ay geliyeen midho dhal fiican uu ka soo baxo dalka iyo dadkana waxaa waajib ku ah xilli kasta inta koonkan uu jiro ee Soomaaliyeed inay u mahad celiyaan mar kastana si qadarin iyo ixtiraam iyo sumcad mudan ay ula dhaqmaan inta sababta u ahayd inaan wax barano heerkaana gaarno iyadoo aanay jirin dowladda keliya ee jirtana ay ahayd dowladda waxbarashada oo iyaga ay mas-uulka ahaayeen waxaan halkan u mahad celinayaa asxaabta ay ugu horeeyaan ama asaatidadeena ama macallimiinteena ama barbaariyaasheena ustaad xildhibaan Faarax Cabdulqaadir ustaad xildhibaan Shariif Maxamed Cabdullaahi iyo macallimiinta kale runtii hormuudka u ahaa xilliyada adag inayna soo gudbiyaan iyadoo halkan markaan jaamacad ka aadaynay aan beledoogle waxa weeyaan ka dhoofnay uusan garoon kale ka sokeeyo uusan jirin maantana runtii dalad waxay la dhihi jireen madaxda mustaqbalka beritaa tihiin waa ogolaanay maanta waan nahay laakiin hadda waxaa jooga kuwa aan ogoleen in la yidhaahdo madaxda mustaqbalka beritaa tihiin oo leh maanta madaxda maantana waxaan aad ugu faraxsanahay macallimiinteeda qaar runtii inay halkaan joogaan 15 sano kadib inaan halkaan ku arko gaar ahaan ustaadkayga ustaad Maxamed Cabdullaahi oo waxa weeyaan ii dhigi jiray maadada juqraafiga iyo taariikhda iskuulka Al-Xigma iyo dad fara badan ugu dambeyn waxaan rabaa farqiga u dhaxeeya waxbarashada farqiga ay samayso inaan idin kala sheego laga yaabo mararka qaarkiis inay iska tahay wax nuugta lagu qoslo laakiin haddana wax xanuun badan u muuqda xilli waxaa la soo maray dalkan kaatoonaad ama Muqdisho keligeeda ay dowlad federaal oo mid kastaba iyada gaarkeeda isku aqoonsan ay ka jirtay waxaa jirtay marka aad baa la isku layn jiray waxyaabo badanaa laga sameeyey waxaa ka mid ahaa qabuuraha dadka lagu aaso nin oday ahoo reer xamara geeriyooday oo 93 jir ah markaasaa waxaa la geeyey marka qubuurta dadka lagu aaso tiimkii meesha haystay marka oo awoodda ku haystaa wuxuu ku yidhaahday haye ninkaan rabnaa inaan duugno bal meeqaan dhiibnaa markaasu wuxuu ku yidhi 2 milyan aa dhiibaysaa shilin Soomaaliya shashada ku qala socoto markaas ayagoo doonay marka waa lagu badan tahay iyo laga yaray laga dhir ayadoo lagu jiro mid kale yimid oo warduuga haye war 200 kun iska keena wuxuu ku yiri marka ninkii reer xamarka ahaa warniyow qubuurtii dadka lagu aasay xataa 4.5 ma ka dhigay midna 2 milyan ku dugtaan midna 200 kun ka qaadaan ma fahmay kii meeshaas wuxuu yiri war dadkan kaliyanti waayo maalin kasta inuu laakiin idinka 9 sano hal maalin loo imaanaysa markaas aad leedahay khibrad mis oo sameeyay
hadda laakiin wuxuu marayaa in laga hadlaayo portal iyo .som iyo yacni tiknolojiyadda ogaada xataa Soomaaliya iyada marxaladan ku jirto inay ka aqoon badan tahay xagga tiknolojiyadda dawladda fara badan oo Afrika ay sheegamida waa xaqiiq. ugu dambeyn waxaan kusoo gabagabeynayaa Chinaha wuxuu dhisay darbi dheer ujeedkiisana uu ahaa markii duulaan lagu soo qaado inaan laga gudbin 100 sano kadib markuu dhisnaa 3 weerar ayaa ku dhacay. 3daas weerar dhacayna uma baahneen inay derbiga soo koraan dadka wayna soo geli jireen albaabka ay si toos ay soo geli jireen sababtana waxay ahayd midka albaabka taagan ay wax u dhiibi jireen kadibna si toos ayay u geli jireen. uma baahanay in masaajida la dhiso haddiiba masaajidadii dadkii ay wax la isku dilaayo uma baahanay inaan wada dhisno haddii kii goobta ku ganacsan ay shacabkii ay qashinka meesha ku tuurayaan. uma baahani daara dhaadheer inaan dhisno daarigii la dhisay haddii yihiin mid dadka lagu qayaano qaarkoodna ay qarxinayaan. waxaan u baahannahay inaan dhisno basharka bini aadamka inaan dhisno ee ilaalinayo masaajidkaas xurmadiisa ee nadaafadda dalka ilaalinayo ee ilaalinayo bilicda samida iyo dadnimada iyo karaamada ciziga ilaalinayo. mar labaad waa u mahad celinayaa dhammaan inta sababta u ahayd inaan heerkan gaarno. nakaasana waxaan leeyahay hambalyo caashikiinna waxaan leeyahay iyo inta la socota waa mahadsantihiin haddaad tidhaahdeen nakaasa inaa tahay niyaddayda wili kama bixin. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.